waxaa jirtay aasiya suqra dawlad ka dhisnayd oo turki ahayd dawladda turkiga dawlad gaalaa bay ahayd daqaaq nin la odhan jiray baa ahaa madaxda u sarraysa ka mid a ciidamada haystay waxaasi inaanu dhalo saljuuq la yidhaahdo ayaa meeshii dhaxlay inan caqli badan buu ahaa dawladnimadii baa ku dhisantay nin xooggan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kani hadduu sii joogo meeshuu kaa qaadaya war ninkan ka takhallus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynahay wasiiradiisu waa inay ka caqli hooseeyaan dee dad mid kaa fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulta haysta ma jecla cid isaga ka hoosaysa isaga ka sarraysa ma jecla dee cid aad wadi karta waa inaad ka haysataa ilaa nima aad wadi karin haddaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha markaa waxa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxa la damcay in laga takhalluso saljuuq ibnu daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag 400 oo nin iyo wax gaadhaya buu goostay u baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiintaa soo dhawaysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dawladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yacni taqra albik ninkii la odhan jiray taqra albik waa ibnu daawuud ibnu mikaa'il ibnu saljuuq weeyaan taqra albikaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dawlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi war na soo gaadh haddaad na soo gaadhi karto taqra albik baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiyiintii buu ka takhallusay dawla alislaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa alabarsalaan baa dhaxlay alabarsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taariikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya alula waathaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dawla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dawla alfaatimiya joojiyey bal dawla albisantiya dhul badan ka furtay dee malaad dakar waa taqaani mafile macrakada la yidhaahdo qisaskii ugu cajabta badan leh isagoo meelahaasi dagaal ka wada ayuu boqorkii bizantiyiinta qustantiin haystay dawla albisantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa 200 kun ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alabarsalaan baa loo sheegay oo 20 kun oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood 15 kun baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday maantadanaynu joogno laba midunbaad heli taariikhdu nimay qortoo magaca leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu yidhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor mayhi sidii boqorna waxu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaalgelayoona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayoona waad fasaxantay waxay idhahdeen boqor mar haddii islaam la difaacayo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa 20 kun baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka allaysale wuu jabiyey dabeetana hudnu u diray waar iska heshiina buu ku yidhi gaalkii dee ciidan muu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa waxba kama jiraan nin baa alla kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la isgalay intay jabiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii qustantiin baa la soo qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo 3 baa oo suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad dee si xun ii dishid ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa wuu karaameeye waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa 1 milyan oo diinaar bixi baa la yidhi 1000 diinaar
wuu aqbalay 1000 diinaar buu bixiyey dabeetana uu sii daayey intii halkan lagu hayay gaaladii surursato waxay dhahaan boqorkiina mid kale calama saareen gaaladii intii hadhay iyagaa isku jabtay oo 2 boqor bay yeesheen dabeetana mushkilad kala qabsay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay taariikhdii ala barsalaan waynu haynaa taariikhdii taqra albik waynu haynaa taariikhdii ahlu sunna ay soo celiyeen soo dawladda ma taqaanin ay tahay dawladdii ahlu sunna macaahidii la odhan jiray almacaahid الnidaamiya ma maqasheen taariikhda ahlu sunna nimankii soo celiyey macaahid الnidaamiya waa ala barsalaan inankiisii ala barsalaan ninkii u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha inankiisii malik shahna u ahaa ayaa dhisay nidaamudiin la odhan jiray waa wakhtiga ay culammadii islaamiga dib ahlu sunna inta meel lagu ururiyey faqiihii shaaficiga ee shiraazi ayaa madax looga dhigay ninkan muhadabka leh ayaa madax looga dhigay dabeetana waa meesha ka bilaabantay madhabka shaaficiga faafistiisii dambe ee juwayn iyo shiraazi iyo maxaa la yidhaha ghazaali iyo qoomamkani ka soo baxeen ahlu sunna dib loo soo nooleeyey laakiin yaa inoo sheegaya taariikhda saljuqkii islaamiyey reerkan waxaan muslimka u taray yaa diinta ku soo daray taariikhda ma hayno garan mayno maxaan uga dan leeyahay markaa quluubta dadka furtaa inta badan taariikhda laguma qoro maalan qiso labaadaan idin tilmaamo tataarka waa maqasheen waxay jebiyeen caalamulislaami oo dhan intiisii ugu badnayd ilaa iyo falastiin bay gaadheen intay ka soo bilaabeen china muslimkii joogay agagaarkiisa ilaa iyo dawla alkhawarzimiya dawla alcabaasiya dawla ilaa iyo bayse soo taageen maxay shaam mamaaligtii yareydee masar harsanayd unbaa u harsanayd mamaaligtii dagaalkaa way joojiyeen way soo celiyeen caalamulislaamigii yaa ka fujiyey markaa kale xun baynu maqalnaa waa la jebiyey dee waxa lagu soo jebiyey shaam laakiin baqdaad sidii bay u haysteen baqdaad ma cid baa xoog kaga saartay caalamulislaamigii kale ayaa ka saaray tataarku jinkis khan ilmuhuu dhalay afartii waa kuwii dowladnimada qaybsaday mid iyada muslimka ismay soo gaadheenoo tii mongolia iyo china xaggiisa ashiya dhankaa u kacday saddexdii dowladooda kaleba way islaameen midba wakhti ay soo gashaba golden tribe-ka ugu horreeyey qoladii xagga sare joogtay alqabiila dahabiya la odhan jiray barka khan ninkii la odhan jiray tii xaggan soka joogtay axmed tikoor ninkii la odhan jiray soo duuduub qaarkood islaamkoodu hore umuu fiicnaanin yaasiq iyo waxbay hoosta ku haysteen way soo koreen 656 meelahaasay hayd soo maaha markii baqdaad la qabsaday 680 dowlado islaamiya bay ahaayeen yaa bedelay ciidankii muslimiintu wuxuu samayn kari waayey waxaa sameeyey jeyshu dacwa markuu jabay ciidankii muslimiintu waxaa muslimiinta dib u xoreeyey maxay jeyshu dacwa maantadan aynu joogno waxaa la leeyahay the fastest growing religion in the world is Islam diinta ugu fufka badan leh ugu faafka badan leh maantadan dunida aynu ku nool lahay waa islaamka percentaantiyada u badan laba sababoodba dhalmada soomaalida soomaydan maqli jirin dee laba walaali hadday kala dhalbataan mid baa la odhan jiray waa laandheera soo maaha soo intaa un maaha intaynu isku gubaysan jirnay dee dabcan dhashu waa waxa la isku gubaysta aakhirka dhalbadnida muslimiinta waxay u socotaa xad ay rikoodhka jebinayaan xad loo malaynayo magaalooyin waaweyn oo maanta yurub ka yaalla belgium caasimadeeda waxaa la leeyahay 25 sano waxaa laga cabsi qabaa inuu muslimku majority noqdo bisababi waxa dhalanaya waayo iyagu gaalada inay wax dhalaan bay diideen kuwii kalena way dhalayaan ka kaalay marka la eego revertka ama kuwa diinka baxay islaam gala na muslimiinta u badan dadka soo islaamaya ka badan ma dawlad islaamiya maanta islaam wadaa jirta maya dawladaha muslimiintu islaamka la diriirsay waa irhaab waa kan waa saatan waa caynkan caalamul islaam oo dhan inta ugu badan leh maxay islaamku waa wax la cadaadinayo haddana wuu faafaya yaa faafinaya ducaaddaasi culamo ma wada aha waxaan arkayay doctor jacfar idriis sheekhan suudaaniga mala weli waa nooliyay dhowr 9 jir wana filosof oo muslim oo caalim ah jacfar idriis baa wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ducaad u baahan in la caawiyo
markaa niman buu ka warramaya wuxuu yidhi maraykan buu joogay markaa maraykan waxaan arkay buu yidhi nin tagsiila ah baa jooga buu yidhi new york ayuu tagsiile ka yahay wuxuu qaadaa airportku dadka ka qaada suuqu geeya 6 bilood gudahood 58 qof ayuu kursiga dambe shahaada ugu qabta waa tagsiile muxuu sameeyaa marka zabunku customerku markuu soo fuulo ayuu quraan u saaraa cod fiican leh reer yurubku mesela maraykanku uu ka furfuran yahay yurubtan kale waxa laga yaabaa nin guriga ka soo horjeeda oo ku jira inaan weligaaba kula hadlaan oo wada degantiin weligiina ay sarkiseen hayna inaydan isku odhan suurtagala laakiin maraykanka iyo meelahaas waa tororog midhan oo dad afka kula soo galayo aad u hadal badan quraanku shidaa markuu quraanku baxo ay yidhaahdaan heestan fiican maxay ahayd bay yidhahdaan markaa codkanu muddo isagu maqlay isagu in questionkaa la weydiiyaan uu doonayay wuxuu yidhahaa hees maaha waa the last revelation from God waa aakhir waxyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaasuu sharxaa waxa kan dadku u sharxay 58 ka mida baa yidhi waa islaamayna waa shahaada u qabta iyagoo kursiga dambe saaran mujarrad inuu qur-aankaa maqashiye kadibna jacfar idriis wuxuu kaloo tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka jooga u yimaada wuxuu yidhaa waryaadheen dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idinna halkan baa iska fadhidaan warkaalayo raaca waxba idinku kaan idiin sheegun idinku kaan idiin keeno diinta u sheega waddadu istaaga dadka waddada marayo ku leeyahay hallow ma islaam ma rabtaa inaad barato ma islaamaysaa badh baa yidhaa war naga bannee de qof waddada marayo inaad tiri ma islaamaysaa war ka bannee waddada yidhaa qaar baa dadku isku mid maaha mid baa yidhaha waa maxay islaamku gacantuu qabtaa laba wadaad uu ka soo kaxaystay masaajidku yidhaha u sharxa dabeetana isagoo halkiibuu ku noqdaa isagoo halkaasuu iska taagay dadkan waddadan maraya wuxuu leeyahay war ma islaamaysaa dadba in badane waxay leedahay war naga tago ordoo way dhaafayaan laakiin mid unbaa odhanaya waa maxay islaamku kii yidhaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa idan waxay leeyihin wakhtiga inu hadda joogno ducaadda aynu tilmaamayna waa dadka ninkaa isagu le anugu islaam badan garan maayo nimankaan idiin soo qabqabanayaayo idinkuna diinta u sheega qoladiinnan masaajidka jooga maalinba labun buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga waxaan uga dan leeyahay marka taariikhda islaamiga haddaad dib ugu noqotaan muslimiin badan oo jabay waa la ogiyey laakiin jeeshu dacwa ma jabin saasuu diintu u faafaysay ilaa cahdigii nebi maxamed laga soo bilaabo calayhi salaatu wasalaam muslimkuu sii tiro badanayay dacwadana way sii socotay laakiin waxaa waday culamadii mujaahidiintoodii iyo aljundi almajhuul diinjiraha si dahsoon ninka aan sheegaya xataa magaciisa ma xasuusto uu ka warramayo doctor jacfar idriis waa diinjiraha dahsoon idan ayuha alaxiba علماء الوعدية waxay la mid tahay Soomaalidu waxay dhahaan waa weyn suba ku shub taqaaneen wanku daawal buu xoolaha kii ugu shishlaaha dad suba ku sii shubto waa un demel awal ba qoyanaydu madsii qoysay weeyaan waxaan filayaa ragani waa un darag badna culamo isu dhigeen badna ducaad isu dhigeen haatan ba shaqadii bilaabmaysa waxa u socotaanina maxay wixii ilaahay idin garansiiyay inaa wax ka bixisaan sadaqa la bixiyo sadaqaadka ugu fiicanna diin baa ka mid ah bini aadam aad ku sadaqadaysato sadaqaadka ugu fiican waxaa ka mid ah qof aad naar ka badbaadisay oo bisababika ilaahay uu janno ku geliyey xilkaasi inaad ku tala gashaan inaad qaadaan oo ilaahay dartii aa u qaadaan idinkoo janno ku doonaya naarna ka badbaadaya waxaad naftaada u qabanayso culays maaha haddii lagu yidhahaa dadka 4 maalmood wax soo qabo waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo dee maalin walba aan ku sii soconaayo ma iyaguna waxooda qabsadaan laakiin haddaad rumaysantay inaad adigu qabsanayso qofna tiisa kama daalo socanka ma waa baryaba waynu ka laahnaa taada kama daashay laakiin qof kale haddaad u kala laahda 2 casho maalin saddexaad waxa laga yaabaa qofka daacigi tiisa u kala lahsay dadka uma kala lahsanid waxaad u kala lahsantay macdiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun soma ilahan qoladii معذرة إلى ربكم آخرنا أدقوا بدباده إنها ترى إلهي وإنتي قارسي إنها تكبيرين الذين يكتمون كي إلهي قرآن كتل مامي أولئك يلعنهم الله
وقرآنك وحش إلهي إيا ملائكته إيا والناس أجمعين با إن إلا عنادا ينقوى قرية حقه إذا المسؤولية دا سيد سوغيسة وأنا مسؤولية الدعوة وفكستو مسلم صارا إذن كنا أوسيتهن مركا طلاب العلم dadkii wax u bartay ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala idinkiiyo annaga bayna aakhirana allayna badbaadiyo waxaynu sheegaynana wax dadka anfaca in alla ka dhigo sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxaadaradaas iyo tawjiihaadka qiimaha badan leh ee xaqiiqatan zaad culus oo waxa weeyaan qofka daalibu cilmiga amba qofka daaciga dareenkiisa dhaqaajinaya oo inooga waramay waa majaalista aan laga daalin aan laga caajisin sheekha majaalistiisa ilaahay noo barakeeyo waxa aan siin lahaa furas maadaama aynu is odhan karno waa jalsa bayna sheekh waducaat wa dalabat alcilm in ragga qaarkood su-aalo kooban haddii waxa weeyaan sheekhu inoo fasaxo insha allah aynu u soo jeedino kadibna insha allah waynu iska tukan doonaa 4-3 qof baynu insha allah siin doonaa fursadda maadaama rag badan ay ka dhex guuxayaan su-aalaha ay jecel yihiin sheekha inay u bandhigaan iyadoo la soo koobayo muslimiintan dambe waxaad moodaa inay soo ururiyeen midda kale طلبة العلم beed jabaya ma tihid waxaan uga dan leeyahay beed jabaya ma tihid hadduu qofku silaaxulcilmi uu qabo gaal iyo muslim iyo bidcoole iyo macasi mid ku jira iyo mid alla ka cabsanaya intaba waxbaa loo sheegaa adiga ma dad gaara lagugula ballamo qura inaad waxu sheegto mise safwadaad raadinaysaa inta khamsaanta gaabsatay ee masaajidda gudahooda fadhiya intaa unbaad adigu mas-uul ka timiya inaad waxu sheegto war bulshada muslimiinta oo dhan baa mas-uuliyaddeeda inay saaran tahay soomaaliya waa boqolkiiba boqol muslim baa la yidhi soo maaha raggaa baxaa rag ka mid waxay ka sheekaynayaan dhulkeennan soomaaliyeed dad badan oo degan oo aan laa ilaaha illa allah aqoon inay joogaan rumaysanaysa cabdirashiid sheekh cali shuufaa ka warramayay qaar uu ku yidhi ilaah iyo nebigu maxay isu yihin oo nasab ka dhaxaysiinaya soomaalina ah idan inana waxaynu ka fakiraynaa oo caqligeenoo dhan kusoo wada hebel waxbaa ka yaro qaldane ma la raaci kara hebel waxbaa ka qaldane war qof aan wax ka qaldanayni ma jiro waa kuma ka nebiga ah isaga wax waliba u saxayi qof walba waxbaa ka qaldan qof aan wax gaabisi ku jirin ma jiro adigu haddaad wax sixi karayso cid walba sax haddaad tahay qof wax sixi karaya cid kastoo aad sixi karto sax dadkuna waynoo wada baahan yihin halkaad is leeday war maxaan garuufa kaa soo gaadho adiga wax ka noqon kartaa ka waco ka kala mar laakiin wax kastoo aad sixi karto sax nebi maxamedna aayadna ha noqotay iga gaadhsiy calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya ama baqa hanuuna ah waxaa la odhan doonaa fulaan waa caynkan iyo fulaan war waxaan inagaa samaysanay waxaanaynu magacyada ula baxno dhan inagaa samaysanay cid walbana dad khayr qabaana waa ku jiraan dad inkaar qabaana waa ku jiraan magaca doonta keen magac kastoo aad la baxdo magacu kaa dhigi maayo qof wanaagsan salafi baan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid tabliiq baan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid wax ka dhaxeeyaan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid waxaad qof wanaagsan ku tahay waxaad rumaysan tahay iyo waxaad ilaahay la hor tagto ayaad ku tahay idan ma qabo anugu kollayba tacasubaadkan yaryar ee dadku ay aadka isugu xidhayaan waxaan qabaa diintaasi dadka oo dhan bay u soo degtay in la gaadhsiiyo gaal iyo muslimba waxaad gaadhsiin karto gaal iyo muslim iyo ahlu bidcaba ciddaad gaadhsiin kartaba gaadhsii wallahu aclam dabad baa lagu bad qabaa waa su-aal dib loogu noqon waa marka koowaad waa laga yaabaa soomaalidu
dadyowgii hore ee wadannada Yurub tegey in badanoo ka mid ah طulaab alcilmi iyo culamo iyo waxaase lamay soconin waxay la mid ahaayeen soomaalideennii hore tagtay waxay u badnaayeen niman geel jira ah oo geeloodii inta la qaaday dabeetana markuu caydhoobay iska tacabiray marka ama qoliyo dowladuhu direen oo jaamacada iyo iskuuliya wax loo diray oo isagana malcaamadii ay ugu dambaysay diini wax kale aan dhiganin badweyn galay dad badan oo muslimiin oo Yurub tegay noocaasay u badnaayeen dad iska xoogsato caamo ah waagii horena ma jirin waxaan hadda bini aadamku ku xidhiidhay tirada badan leh social media iyo TV-gan iyo waxa kan waxa laga yaabaa ninka Oslo jooga inuu ka war badan yahay adigoo Hargeysa jooga inuu Hargeysa kaaga warbato TV uu daawaday iyo mid uu la soo xidhiidhay iyo WhatsApp-ka iyo wax ka dhacay halkan inuu ku soo weydiiyo adigoo aan adigu ogeyn marka waxaasina ma jirin saadaradeed dadkii hore masaajidna ma jirin way yaraayeen marka way yaray dacwada islaamiga ah dadkii dambe tegay ee qaxoontiyadan dambe waxay u badan yihiin dee wadanno dhan oo gunta laga rujiyey dad odaygoodii leh oo habartay leh oo wadaadkii leh oo taalibulcilmigii leh oo ardaygii leh oo ilmo yar leh nooc walba dee dad uun iska dhan oo guuriya tegey marka waa ka gadisnaanayaan dadkii hore ee meesha tegey laakiin midna ku talagal meeshu waa khatar gabayga carbeed muxuu sheegayay laba diblaynta wuxuu badda ku rido muxuu yidhi iyaaka an tabtali waxaan kaaga digayaa inaad qoydo meesha tan waa meel khatar ah saa daraaddeed dadaadu badani waa lumayaan dadaadu badan ilaahay waa ilaalin karayaa se waa meel khatarteedu badan tahay dhanka kale marka la eegana ciddii rabta inay wanaagsanaataa miiniskay ku wanaagsanaan lahayd way helaysaa oo ah culimo joogta oo ah netkan oo dee wax waliba ku jiraan gurigaaga dee adigoo jooga jaamacad ka bixi karaysaa oo dee netkiiba wax walba uu ku jira ayo kitaab la akhrinaya ku jira wax walba ku jiraan sidaa marka loo eegana dee waa facility tiro badan oo qofka u fudaydinaya inuu wax sameeya ku jira meelaha soomaalida lagu ammaana haa waa jiraan laakiin waa shay nisbiya maalan soomaalidu culturally bay u leedahay qur-aan qayb marka waxaa laga yaabaa dadka kale qur-aanka akhriskiisa inay bartaan unoo dabeetana aan cid qaybsani ku jirin marka waxaa laga yaabaa inaad aragto masaajidda oo dhan ramadaanta inay inama soomaaliyeed wada tukiyaan waayo soomaalida xufaada ku badan beri dhoweyd maraykanka tartan qur-aan baa lagu qabtay nationskii muslimiinta oo dhan ee meesha joogay intoodii badnayd baa ka soo qayb gashay waa 6 qaybood oo min 3 qof la siinayo 30 jis 25 jis 20 jis saasoo kale 6 qaybood oo qaybba ay tartan galayso qayb walba 3 qof baa ka soo baxaya 18 Soomaaliyeed baa qaaday gebigeedba meeshii la isugu yimiba 3 xufaada quraanka oo dhan waa Soomaali 3 5 jis waa Soomaali 3 nusku waa Soomaali 18 Soomaaliyeed baa la siiyay hadda waxaad qiyaastaa meel ummad dhan oo muslimiin isugu timi oo meel kasta 1 2 3 uu Soomaali yahay meelahaasoo kale cidiina lama wadaagto dadka xifdigeena la wadaaga waxa ka mid ah murutaanta ma dhoofaan walidalik haddaad xufaad aragto dadku culture u leh dhaqan u leh soomaalida ka mid ah marka dee dadku markay arkaan un raggan dhan qur-aanka korka ka wada akhrinaya awliyaa laynoo wada qaatay waa wada mawlaana baynu wadannay dhankaa marka laga eego astaan kale way leedahay soomaalidu oo ah asturka xijaabka maradan weyni dunida kuma badna waxaa laga yaabaa inaad aragto xijaab masar yaroo madaxa lagu xidhay iyo shaadh iyo surwaal idhanto xidhantaya waxaa laga yaabaa inaad aragto xijaab cabaayad yaroo dheer iyo masar yara laakiin kan waaweyn inta badan soomaalidaa seeta
dadka kale imika kaga dayda siiba imika maqrib alcarabi muslimiinta ka yimo kale waxaad arkaysaa imika iyaguna ka waaweyna soomaalida toshay oo kale idan xaggaana waa ku caan dad aragtay xijaab weyn oo meel sii socda waa Soomaali waliba waxaynu caan ku nahay guryaha ma galla moogti dabadeen ku sheekaynaa marka Soomaalidu hadday meel magaalo 100 qof hadday degan yihiin way ka muuqanayaan meelahaas uma soconayaan in kun degayaad moodaysa waana 100 waxa deganay marka dumarkeen iyo soconaya iyo nimadii soconaya waxa marka la arko dee waxaad badinaysaan astaantii meel walba xijaab uun maraya iyo mid gadh loo maraya unbaa ka soo baxaya deetan waxaa la soo dhanaya war nimankani waa wada culumo waana laga yaaba dad yar inay noo meesha warwareegaya marka waxaan uga jeedaa waxna waa ka jiraan inay Soomaalidu waxyaabo badan la tagtay oo aan dadka kale ku badnayn مثلا جماعة كمدة سوماليdu dadka jamaca ilaaliya kamidii waxa laga yaabaa masaajidda marka tagto magaalooyinka centerkooda la masaajidka soo gashaba 60 70% inuu Soomaali noqdo masaajid baad soo galaysaa dadka ugu badan ee tukanaya waa Soomaali jamaca ku jira salaada waa ku fiicay waliba jamaca ilaalinteeda waa ku fiicay laakiin midna waan idin sheegayaa waliye badanna waynu ugu horeynaa hadda muslimkii iyo wixii joogiyo gaaladaba waynu ka horeynaa way Soomaaligu u dhiiray inanka Soomaaliga markuu inxiraafo weecdo ilaa halka u dambeysuu gaadhaa magaalooyin dhan baa daragada waxa iibiya Soomaaliyeed xabsiyada tagaysa magaalo lagu odhanayo 700 Soomaaliya ku xidhan dabeetana waxa laga yaabay percentka marka la eego tirada wadanka intaynu ka nahay iyo tirada xabsiga intaynu ka leeyahay wax isu dhow maaha xaqaana dadka waa uga dheeraynay walidalik xabsiyada dhalinyarada ku jirta marka la eego ama dadka ku xidhan tirada ay wadanka ka yiin kama aha xabsiga aad bay uga badan yihiin marka Soomaaligu waa qof dhiiran hadduu wanaagsanaadana wanaagiisa uu ku dhiiran yahay hadduu xumaadana xumaa uu ku dhiiran yahay